iyadoo habeennimadii xalay tahayd uu ka soconayay dalkani Djibouti fantastiyo lagu dabaaldegayay sanad guurihii 43aad ee ka soo wareegatay markii dalkani Djibouti xorriyadiisa ka qaatay gumeystihii Faransiiska ayaa kooxaha fanaaniinta qarankani Djibouti ay ku soo bandhigeen heeso kala duwan oo ka turjumaya marxaladihii xilligii gumaysigu dalku ku sugnaa iyo sidii looga xoroobay waxa calanka la suray caasimadda dalkani Djibouti xalay saacadu markay ahayd 12kii saqbarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa isagu la fahaantiisa xilligaasi kala hadlay telefishinka wadankani Djibouti dadweynaha dalkan waxaana khudbad uu jeediyay uu ku sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers compatriotes, nous fêtons cette année l'accès de notre pays. sanadkan waxaan u dabaaldegaynaa xuska madax banaanida qarankeena iyadoo aan ku jirno xaalado uu curiyay COVID-19 sidaasi awgeed sababo caafimaad dartood waxaana la gudboonaatay inaan joojino ama baajino dhammaan xafladaha waaweyn ee rayd iyo militariga ee dalka si kastaba ha noqotee walaalayaal dhammaanteen waxaan ku xusaynaa maalintani qarannimo si dareen iyo shucuur xambaarsan oo u qalma dabaaldega maanta ama dhalashada jamhuuriyaddeena oo ka turjumaysa maalinta aan noqonnay qaran jira oo ku midoobay mabaadi'da dhaqameed iyo midka diimeedba waxaan rabaa in da'yartu ay barato dawladdeena oo dacayado badan laga faafiyay bilowgii dhismaheega waxay si weyn uga shaqaysay awoodeeda waxaana awoodda ay dul dhigtay adkeynta jiritaanka iyo dhismaha dawlad awood leh oo ka shaqaysa difaaca dadkeena iyo dalkeedaba dalkeena qiimaha badan qarankeena Djibouti ee sida dhayalka aan ku helin marnaba ma ogolaanayno inaan su'aal galino jamhuuriyaddeena ayaa nahuran ma aha in la fudaydsado isla markaana su'aal laga keeno dhulka hooyo ayaa hoy laga helaa waxaana dawladdu ay noo tahay gaashaan in difaaca oo ilaaliya xasiloonideena iyo nabad ku wada noolaashaheena madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa saaka waxa uu sidoo kale ka qayb galay xuska munaasabadda 43aad ee ka soo wareegtay markii gumeystaha Faransiiska dalkani Djibouti uu xorriyadda ka qaatay qasriga madaxtooyada ayaa waxa soo gaaray boqolaal ciidan oo ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada dalkani Djibouti kuwaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu halkaasi salaan kaga qaatay waxaana goobtaasi lagu garaacay astaanta calanka dalkani Djibouti iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalkani Djibouti gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada xildhibaano iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaa intaa kadib waxa uu salaan ka qaatay ciidamadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu sidoo kale taalo lagu xasuusto dadkii kala duwanaa ee naftooda ku waayay halgankii dheeraa ee loo soo maray dalkani si looga xoreeyo gumeystihii Faransiiska sanad gudaha ay ka soo wareegtay markii wadankani jamhuuriyadda Djibouti uu xorriyadiisa ka qaatay gumeystihii Faransiiska ayaa sanad walba maanta oo kale waxa si weyn looga xusaa wadankani jamhuuriyadda Djibouti Mikael Abdirashiid Bare raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed